Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale muuqaal cusub kusoo dhowo Bitach. Muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay oo aan uga hadlaynaa sida loo samaysto Gmail isagoo dhammaystiran adeegsanayana moobilkaaga oo aadan u baahnayn wax kombiyuutara. Kusoo dhowo muuqaalka. Marka ugu horeysa ee aad moobilkaaga soo furto waxa aad tagaysaa settingka markaad gasho waxaad kasii dooran doontaa qaybtaas accounts qaliya kugu qornaan doonta ama accounts and backup ayaa kugu qornaan doonta hadba moobilka aad haysato. Mid kalena waad samayn kartaayo intaad browserka gasho aad halka Google accounts ku dhex qori doontaa halkaasna ka samaysan kartaa, balse halkana ugu fudud oo aad ka samaysan kartaa markaasi Gmailka. Haddaba aan guda galno accounts markaad kasii doorato accounts baad markaasi sii dooran doontaa. Marka aad sii doorato halkan waxaa kaaga soo bixi doona markaasi kuwii aad isticmaalaysay ama haddii aadan waxba kugu jirin waxba kaaga soo bixi maayaan. Waxaad dooran doontaa halkaa add account ay ku qoran tahay baad markaasi ka dooran doontaa. Markaad halkaa doorato waxaad halkana kasii dhex dooran doontaa Google halka ay ku qoran tahay. Google markaad kasii dhex doorato halkan markaasi uu searching garanayaa waxa uu ku bilaabayaa inuu ku baaro meesha aad Gmail ku samaysanaysay, dabadeedna waxa uu ku weydiin doonaa furaha kugu xidhan moobilkaaga ama screen logga ama lock screenka ayaad markaasi gelin doontaa halkan. Hadda fingerprint baan anigu ku isticmaalayaa ayar baan daaban doonaa markaasuu markaasi ka furaya. Haddii aanu fingerprint lahayna waxaad gelin doontaa lambarka aad ku xidhatay pinkaaga ama kilijiidii ama nooc doona ahaado. Marka aysan halkan kugu soo baxdo haddii aad ciwaan hore lahayd halkan aad markaasi gelin doontaa. Haddii aad maaragtay mid cusub sameynaysana qaybtan hoosaad markaasi dooran doontaa ee create account ay ku qoran tahay. Haddaba inaku halkan aynu dooranayna maadaama aynu samaynayno Gmail cusub halkan aad kasii dooran markaasi create account. Dabadeedna halkan waxa laba markaasi option buu kusoo dhigayaa for myself iyo to manage my business. Haddii aad Gmail doonaysa ganacsiga ama shaqadaada aad ku maareysana taa hoose dooranaysaa. Mid shakhsiyad ahaantaada aad u furanaysaa haddii aad furanaysana waxaad dooranaysaa for myself. Markaas iminka waxaynu dooranaynaa for myself maadaama aynan wax ganacsiga waxaas u sameynayn. Marka aad kasii doorato halkan waxaad gelin doontaa magacaaga aad ku qoranayso. Halkana iminka waxaan gelin doonaa barkhad baan gelin doonaa. Halkana waxaan gelin doonaa Xasan Caadiya. Dabadeedna next baan odhan doonaa. Markaad next tiraahdo halkan waxaad gelin doontaa taariikhda maalintii aad dhalatay ama mid aad ka gashataba isla markaasi maaragtay aad ku buuxsato. Hadda halkan 9 baan gelin doonaa. Halkana bishan waxaan ka dooran doonaa markaasi aynu markaasi doorano mid baan ka dooran doonaa. Halkana sanad baad gelin doontaa markaasi xilliga dhalatay waa taariikhda dhalatay buu ku weydiinaya. Halkan waxaan gelin doonaa markaasi 95. halkana waa sinjiyadii oo lab iyo dhadig ka aatay baa markaasi dooranaysaa waa female iyo male rather not say. Halkanina waa anu midba meehi weeyaan. Markaas inaku waxaan dooranaynaa labadaas sare oo labadan hoose waad ka diin doontaa. Haddii aad gabar tahay waxa aad dooranaysaa female, haddii aad wiil tahayna waxaad dooranaysaa male. Marka imika bal male baan dooran doonaa. Next baad markaasi odhanaysaa. Next markaad tiraahdo halkan markaasi waxa uu kusoo dhigi doonaa qaabka uu Gmailkaagu u dhigmayo. Imika aniga P Xasan 921 buu isoo dhigay, Barkhad Xasan 31@gmail buu isoo dhigay. Halkana mid cusub haddii aad doonaysid markaasi samaysan doontaa oo aan kuwa sare ka mid ahayn. Imika halkan haddii aan geliyo Barkhad haddii aan geliyo barkhadtech@gmail.com ama intaa baan ku daayaba oo kaasoo qaadanaya. Markaas ka aad doontaa baad halkan markaasi gelin doontaa. Haddii uu ku diido oo uu kusoo dhigo casaan waad ka bedelaysaa magaca baad bedelaysaa oo wuxuu ku odhanaya hore loo isticmaalay kan ee ku kala ku bedel. Marka ka ku qaatay aad geliso ayaad next markaasi odhan doontaa. Markaas saa u geliso halkan waxaad ka dooran doontaa password markaasi maaragtay dooran doontaa aad gashato Gmailkaaga. Imika password baan markaasi dooran doonaa ama furihii ciwaanka. Waxaan doortay furihii baan doortay aan u samaystay Gmailkayga. Next baad markaasi odhanaysaa. Next markaad tiraahdo hadda adiga arkaya saasoo ku dhameystiran yahay
oo markaasi maaragtay uu kugu dhan yahay. Keliya waxaa kaa dhiman verificationkii in ay shirkadu ku aqoonsato. Agree baad markaasi odhan doontaa inaad aqbashay shuruudaha ama sharciga u yaala Google-ka. Hadda saasuu ku dhammaystiran yahay Gmail-kii aynu samaynay. Keliyata waxaa dhiman inaad secure garayso oo markaasi aad adkayso. Accepted markaasi odhanaysa markuusan kugu soo dhigo. Accept markaad tiraahdo hadda waad isticmaali kartaa. Waad isticmaali kartaa meel alle meesha aad rabtana markaasi waad u adeegsan kartaa. Saasuu ku samaysan yahay. Waxaad markaasi aad samaynaysaa keliya waxaa kaa dhiman waxa weeye security oo ah in aad markaasi adkaysato inaad lambarkaaga gashato, in aad maaragtay recovery email wax la yidhaahdo gashato, inaad ku xidhato 2 step verification wax la yidhaahdo oo markaasi Gmail-kaaga aanay cidi kaa jabsanayn. Hadda qaybtan oo keliyata aynu ku daynaynaa sida loo sameeyo. Qaybta xigtana waxaan ku eegaynaa sida lambarka loo geliyo. qaybta kusii xigtana insha Allah waxaan ku eegi doonaa sida recovery email loogu samaysto. qaybta markaasi ugu dambeysana waxaan ku eegi doonaa sida 2 step verification loogu xidho. haddii soo baxaan wadooyin kale oo markaasi uu u baahan yahayna waynu kasii samayn doonaa muuqaalo. Maanta waxa uu ku joogi doonaa muuqaalku sida loo sameeyo Gmail-ka. casharka ku xigana waxaan kusoo qaadanaa oo maaragtay aynu ku sameynaynaa maaragtay sida lambarka loogu xidho aynu markaasi ku eegi doonaa insha Allah. aad baad mahadsan tahay. subscribe-ta iyo like-ta iyo share-tana nagu dhiirigeli si aan muuqaalo cusub soo gelino. Wassalaamu calaykum.